kulan casho sharaf oo habeenkii xalay lagu qabtay hotel barwaaqo ee magaalada Burco ayaa waxaa casho sharaf ballaaran loogu sameeyay xulka kubadda cagta ee gobolka Togdheer. xulka kubadda cagta ee gobolka Saaxilkaasi oo lagu sagootinayay xulkaasi kubadda cagta oo isagu ku guul dareystay inuu gudbo wareegga semifinalka ee ciyaaraha kubadda cagta ee gobolada Somaliland uga socda garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco. gobolkan Saaxil ayaa waxa uu ka mid yahay gobolada ugu awoodda weyn la dhinaca kubadda cagta marka la eegayo gobolada Somaliland, balse waxa uu sanadkan ku guul dareystay in uu u gudbo wareegga semifinalka, waxaana uu qayb ka yahay gobolada Togdheer, Saaxil iyo waliba gobolka Gabiley oo iyagu aan u gudbin wareeggaasi semifinalka. kulankan habeenkii xalay hotel barwaaqo loogu qabtay xulka kubadda cagta ee gobolka Saaxil ayaa waxaa ka soo qayb galay qurba joog, mas'uuliyiinta heer gobol, heer degmo iyo waliba isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha hidaha. kulankan ayaa waxaa lagu soo hadal qaaday ciyaaraha iyo qiimaha ay u leeyihiin daayirta, waxaana muddadii uu socday halkaasi lagu soo bandhigay hadallo guubaaba iyo dhiirigelin iskugu jira, kuwaasi oo lagu sii dhiirigelinayay ciyaaryahanadaasi sidii aanay uga niyad jabi lahayn kubadda cagta oo ay uga baaraandegi lahaayeen sidii ay u qaadi lahaayeen koobka dambe ee gobolada Somaliland. xulkan kubadda cagta ee gobolka Saaxil ayaan isagu marnaba aan ku guuleysan koobka gobolada Somaliland tan iyo intii la qabanayay koobkaasi, balse waxaa xusid mudan inuu soo bandhigay ciyaaro aad u heer sareeya tan iyo intii uu ka qayb galayay koobka gobolada Somaliland. Cabdi Sattar Sabri, telefishinka qaranka Somaliland, magaalada Burco.